harka laamaha geedkan waxaa ku hoos yaalla sanduuqan taleefanka ah ee codlada yaalla khadku wuu ka go'an yahay oo ma shaqaynayo laakiin Kazuyoshi Zazaki danka ma laha waxaas marar badan ayuu halkan yimaadaa waxaan u garaacaa lambarka taleefankii xaaskiisu waxa ay ku dhimatay 10 sano ka hor tsunami waxa uu sheegaa in dhankooda ay tahay habeen ama maalin iyo xidigaha cirka ee sida dahabka u ifaya waxa kale oo uu sheegaa sida uu uga mahad celinayo kulankoodan qolkan telefoonka hab ayuu u siiyaa oo laabta ayuu geliyaa waxa uu galgacal sidaa la midana ku qaabilaa dadka ay saameeyeen dhulgariirka iyo hirarkii tsunamida dadka kuwa nool uun ma qaabilee waa meel ay laabta isku geliyaan kuwii dhintay iyo kuwii ay ka dhinteen Kazuyoshi Sasaki ayaa iska la beertan waxa uu dhigay sanduuqan taleefanka sanad ka hor tsunami kadib markii inaadeerkiisu u dhintay kansar waxa uu og yahay sababta taleefankan oo loogu yeero taleefanka dabayshu uu u noqday mid aad muhiim ugu ah dad aad u tiro badan waqtigan si lama filaan ah ayay mar kaliya u noqdeen kuwo aan awoodin inay arkaan kuwii ay jeclaayeen marka waxaa jira dareemo ay dhacdadaasi kaga tagtay waxaa jira waxyaabo ay u sheegi lahaayeen markii iskugu Maragudona ayaa iyaduna halkan geysa carruurta Tiana Akawa waa 12 jir awowgiis ku dhintay isaguna masiibada waxa uu sheegayaa dhawaan inuu u gudbi doono dugsiga sare coronavirus-ka ayuu sidoo kale uga warramayaa inkastoo uu sheegayo in iyagu ay bad qabaan oo fiican yihiin kumanaankuna ayaa yimaada halkan hadda oo ka kala yimaada Japan oo dhan si ay ula hadlaan kuwa dhintay jawaab weligood ma helaan laakiin waxay ku nafisaan kool kasta oo ay diraan